يور ورقة كان قيدة هيا قرية كشرتي هاي هاي شفتي هيا شفتها هذا ما يبرتد حتى ما أهله كدوا لو ذا تحت كبرى ما أنت دويد قاعد وجوه سوايس أرجني أنا وحنا دتك عن شعلين إن شركة الله سيد دير شركة دير واحد إذا أيل الملا وقت لون اسمه إيه ما ملينا إني سستحي هذا نرد يرتع سلاته بين كشرانو يعني دعة تابعها مايا هذا الكتير هذا بدنا وقت اللي بنشرو وابن نعيب أوكي أنا إنه حاجة على هذا أنا قف كسي برتو وقت على قاتو هذا واحد يدنين قف أنا أقول قلنا كبرين ويدي سنكم أبرت بالي أنا العجوان هيا فامل عجيبة كذا شيء هوية عجيبة إذا شيء ولا لا عجيبة إلى هذا شيء محاك لو كل شيء قدير ريرك كذا شيء واللاندير وصومالي لكن هذه طبيعتها يا جماعة قانون أنا يقول كانوا أنا غسلي marka xanaaqsanahay burka xanaaqsana ugu fiicnahay ba marka xanaaqsanahay waxaan ka xanaaqa cajeelada gubatay cajeelada gubatay ana cajeelada ma kariyo ma yaa idin kariya wala shay dib male anagana hooyaday waa ku karinaysa hooyaday xagga ku karinaysa okay nin saasana صح wax alla waxa jecel waliga maad guursanin ma adi gabar yar baa tahay waxaas maad guursan iyo naga markii waa weyn yihiin ba waxay yiraahdaan naag ma leedahay hooyadaa ma nooshahay oo adiga lama rabo waxaas inaa soo hadal qaadidba maxaa soo hadal qaadid waa anima rabin in naag qabo inaa aroosay ya nin naag leh adiga waxaan kugu akhri ilmo yar baaba tahay oo bibiila oo laga badiyay suuriya laga badiyaaba tahay hadda ilma leedahay waxa isku kaasaraysaa marka ilma igu tilmaamaysa ay urgufaysa taad korkiinana baf maxaa waxa soo daadinaysa هيا marka kale xadna ilmaha igu tilmaamaysa maxay isku kaasanaysaa daan damaya gabdhuhu markii ay jiraan 12 13 14 carabta waxaan kugu sheekay 9 jir bay guur ku gaaraan Soomaalidana de 18 ku macaan yihiin bali waan gartay marka xaalkayga oo anagu waa sida marka aan ku soo doono aaba ma jooga aaba way hato aaba xaafad kale u degan yahay lama nool anaga abi hooyo way kala tageen haya laakiin hooyo joogto hooyo joogta tay kala hadda hooyo isoots hadda la soona aaba ma jooga asaw aaba ma joogsta fiican walaal aad baan fiican haya sidaada kale waa marka maanta xaq u geemide qof salaam walaal sheeka haysana xaq gale ma ahne ar gurgal warjicilaa ka murashawa khabiira waahay waa caasi muxuu yahay ninkan isha ilka waa saaxiibkay oo xaraw anna abti waan ku ah ana abtiita ma suuqastan hore saaxiibkay kansiga waxay tahay waa gabadhan hadda meesha isku aragnay waa wada hadlaynay qof weyn baa tahay orday qof weyn baan ay ma ina magdaarkeeda istaagtaada lagu soo bixi maxaad sababta hooyan ku sheegi maxaa gadaar ku taagay orda taabka dib waartan ka waran adoo la taagay wiil guriga haduu yimaado yuuya hadaa banaanka lisa yuuya ada afar wiil kala ku yimaado xaafadaha maxaad ugu dul meeraysta maxaad guriga u leeyahay guriga maxaa la tagay de waa sax kale guriga nagee ceeb weeyaan aad meesha u taagantahay ninka us or guriga gal hadan wadada tahay waa adarku karo adigu hooyo dhageyso ilmo yar waxaan wana qof weyn waana ilmo yar waalida oo igma xishoonaysa ani ma iyadan ka xishoon laakiin waxay ku tiri nin kala guriga ku yimaado ma xiriir kala leeyahay may dimaashigay maalin hore aragtay markaas ninka walaasha qaba may haduu aroosina waa walaashana ma hadda la aroosiya naay ku dhaafin adiga fursadda dahabiga ka hadda ku soo martay may ana hadda guur bari waa ku sheegay inaa asbarana ده بس دي ولا وقت أذا لومينية وقت أذا لومينية أنا وحنا كل وقت جيرك عن كفة إذا يستنوا فرصة ذهبية عربتي يعني أي ما يعني هذه ناس فهنا صمرتي أو دبي عدي دبرتي دبي عدي وروتش دبي عد دبر أنا نبي ما ولا هبل أنا قنصة كوكو مرة تقانا هذه ده وكوي لا دشة بانكرني أو هو يدي بانكرني يقول دمبا طب لما كل إنا يقولون دشان إيش شيء حالة مكان ولا لو إلى دشان كو وقال سنبا إلى دشة هايو ها كعاوي balnaanta hada noloda balaag bal ninka dibadda la taagantay ana intiga balaayaad sheegtaa adigu maxay horta saayid bal nin bidariiqa la taagantay ceebaha dariiqa istaajiye ma aqaan markaan la hadlan indhaha iga booday weliba washmaankiyo waxa weeye midkii meelaha ma huwa caadi oo wala suuqaas nabli bidariiqa la taagantay indhaha way dhacin dadkana la yaabi war la hadal adigana balaaya waxa ku haysa inaad dariiqyada fiirisay hooyo ma ina war la hadal waa ceebe wax wuxuu yahay ninka meesha taagan ma aqaan kala arag wad arkibe ما شاء الله قبلين بديهين ما شاء الله marka xalko sidaas weey guriga laga jecel yahay ما شاء الله haya
diyaar waaye laakiin ogowda ani wax cunto karis waxaa ma aqaan maxaa aqoona hooyaday baa wax walba afka ku gilgilinaysa naadan hooyo maxay tahay meesha taagan tahay yaa hooyaye aad badan ana saxarad waxaan anshax lahayn baad daaqada lagaaga jeeday soo gal guriga maxay tadriiqay waxa la faalayo yaa xarad gadaal bay sii fiirinaysaa indhaday gad haye waa fiicna alxamdulilah wiilkaaga khatartaa reeraha daaqadahooda soo istaagay maxaad ahayd adigu daaqada ma istaagina gabadhaadaan haddaan muxuu ahaa la sheekaysta ma dhib baa ku jirta gabadhaydu meel akhlaaq meeshaad oran lahayd guriga soo wada gala oo soo wada fadhiista war waad indhaadag tahay gurigaan adigu maadu dhisane indhaadaygaaga ani gurigayga haygu amrin oo haygu agine maxay kaa daba dhigan maxay tahay xad gidaarada la taagan tahay meesha ugu xun ugu yidataa qofka arab la istaagaa naftada rajada male wax kaa gala male nolosheeda anaa iska leh mas-uulna anaa ka ah meesha aad doono iyo waxaa raba aa sameynaa afaariga haddaa ka bixi weyse kow aa kaa siinaa maxaad afaara kaw iga siin aniga maxaad gidaarada ragga loo taagan saan baad u taaganta markii meel waxaa wiilaa sheegaysaa 100 nina dhexda waxaad dhigaysaa naag muslim asturana muslim maxaad albaabada la taagan tahay yaa albaabada taagan tahay hadda waa hooyo ugu wacda ii sheeg hooyo maxaa nuugu wiilaa la hadlay waa ku soo dhaqaaqday charashana nagu ceebso la yiraahdo doonaysaa gabdhaha xabsaha ka taagan oo rag la taagan adi nin guriga ma keentid xagee la aada ka anin ba ma doonayo wax la baranaya maxaa nin iyo afaara iga gali aniga iskuma mashquulinayo dhageyso gabadha meel akhlaaq la lagu sheekaystaaye dee kaale dhimana iga dabageed gabadha free meesha ma joogto iga dabageedaade gabadha akhlaaq iyo fadhi lagu sukaansaday leedahay maxay tadaaqada istaagis meesha baadiya u malaysay dhaqamadii iyo ciyaal suuqnimadii hore khalad haddaan geysta haddaan gadaal ka saxaya kaale gabadha meelaan ku shukaansaday igey marka horaad iska xumaysa arrintee mar damba ma arki karo daaqadaha gurigayga adoo taagan waaw sodohdaan doonayaaba tahay kaale dee waad indha adag tahay mana arki kara waxaas sabab xilli hore ay ahayd derbiyada iyo luqluqyada iyo daaqadaha xilli isla istaago magaalaan joognaa mar hore aan ka soo gudubnay gabdhaha ayaguna maahan gabdhaha daaqadaha lala istaago macana waa ku xushmaynayaaye wiil yar oo sheega xiiraad tahay waxaan ku leeyahay isi dhinkaaga qabso mana arki kara gabadheeda mar dambe meelaha ha ugu yeeri ceeb xishood saha ilaha saad rabtaa weliba inay ila sixidiyo waad ku saynaad gurigaaga ma igeysi dad leeda maya hadda laftigeeda waxba iskuma diidanine kaale guriga i fariis oo aan gabadhaada macnaha la sheekaysto si sharafa qurux badan maad marka hore u tiraahdaa iyada guriga igeey wixii hore dhow khalada way dhaceen gabadha iyada halkaa igu celisay iyada kaa baqaysay hadda kaalay gabadha iigee gabadhii baa maskaxaad ku rido daaqada la istaagtay anaa waxaa rabtaa anna inta mid kale igu soo xirtid qoful kale inaad tiraad guriga igee war soco shaqo yeelo mar dambar ma arki karo shaqo yeelo dee gabadha aan kaa soo doonto marka shaqo yeelaan ku leeyahay gabadhaada diyaar wey waad indha adag tahay diyaar wey agteeda ma soo mari kadhi xataa maraa hooyo igu dirtid maraa wacan igu dirtid adi kaale xataa aaba cabdinaasir inaa igu dirtid aad jeceshaa laakiin warkaaga ma qato adiga haddii aayar fadhiya adigu baa iyada nagu dirtaa cid walbaad nagu dirtaa mad aayar fadhidid waan ku dayn lahaa markaad maxaa dhexdeen watar ku soo geliyay adiga baad idnadaysta waan ku dayn lahaynin oo marka hodow way kugu taagantaa ku taagnaa na maxaa tii buuq iyo qaylad maxay mooyaan maxaad igu soo sheegtay igu haysataa albaabka horteeda igu dilaysaa ka waran maxaa horta dilaysaa igu taaganta ma dilin hooyo korkeeda xataa cunugta anaagtaana ana iga yar ficayga ma waxaad noqotay inaad marna wacan qabsatid marna gabadhaad habarta u tahay qabsatid marna la dariiqa la istaagtid naa adigu sidaa kuu soo shaaminayo aan saas maaragtay korkaaga dirso korkaaga taabta u ilaahay ninkii guursanaayo galbalaya ku guursatay indha adagkaaga guurkii maxay tahay sheegaysa oo ninkii guursanaayo waa ninkaaseeto guur baa kaa cararay ilmo yar baa tahay walaashaadi kaa weyneyd baa joogta oo dhowr iyo 20 sano gurigoodii hagaajinayso joogta adoo iyana weli 20 aad gaarin baa xartay inaad nin dir oo haddana nin wanaagsan ay idin keentiri mid sac ahoo lasoo hindhisay saa ku haye waxaan tari dhegeyso wiilka uu wanaagsan yahay maalinta isbarnay wuxuu dhahay ani mustaqbalaa kaa raba sheeko iyo wareeg ma kaa rabi nin oo sas dhahay nin mustaqbal diyaar inuu guursado gabar diyaar waay mustaqbal maxaa weeye mustaqbal in oo lis arso nolol isla wadaago haye qofka aroosis muxuu yahay qaabkee ku aroosisaa maxaa lagu doortaa bal mustaqbal iyo guur maqashaye balaayo indhaadayay muxuu yahay guur muxuu yahay mustaqbal ninkaad xulanaysa maxaad ku xulanaysaa fiican yahay wiilkan hooyo muxuu ku fiican maxaad ku aragtay fiicnaanta ku dooratay muxuu yahay hadda hal saac wuxuu dhahay gurigiina geli anaa diidanaa oo dhahay ma ninka aniga heebtiisa igula gabadhaadu diyaar way wax kasta diyaar ba u tahay igee fadhigiin na maxaa diyaar kaa dhigay ma luqluqyada iyo derbiyada daaqadaha diyaar ku noqotaa hooyo adiga waxaan markay dhahdo waa guursanaa muran ka keenin ani maxaa iyu diidaysaa sharaf iyo qurux bay iyadoo muddo dhowr sano la sheekaysanaysa inta gurigeeda timid bay faamilkeedii ula timid adoo ugu kaa yar bay ku basay mar waa dhowr sano inaa la sheekaysto aniga bay maqlaysaa ninkaas anu qaabkiisa uma boginba qaabku u taagan yahay suu yahay baana uma boginba dhasheeye ka dhigala kaasna mama soo galaba waxaan kuu sheegayaa
walaashaayo waxaanoo joogta kaa weyn ma guursanaysa waa inaan iyada u guurinaa waa inaan dhisnaa waa inaan gurigeedii ayada aabeeda isku sitiine adiga yaa ku bixini aabaha ayuu yahay adiga cabdinaasir waa aabe maxaa ku ogaatay in cabdinaasir yahay ma balaa idin dhashay wax idin bixinaya lama yaqaan ku kala ma soo socdo baaye bax meel fariisay mid kale ma soo socdo micne mid kale saddexaad baa ku dhalaadna bax xarood balaayada ku meerisay mustaqbal kula mustaqbal muxuu yahay mustaqbal bay taqaanaa ya ma dhalan dhowrtay sano ka maqli jiray indhaadaka tan korka ka masaxiyay bala noqotay ابو أبي سيتا حالده في عن غير سنقط وان في عنها الحمد لله يعني بريهن أروسيا بدن بأسوقها كل ما يو ملاريا ضهدا مقبوبة ضهدا مهرجب ضهدا ساعة أنت الله يقبض والله يروح يروح حاسلا كرونيه وايسلا أنا أسينو صلاة أملينا أبو هذه ماسكة سكحرة أو هذه هرجب يوحش نوع عيادة سوية هن سكرانتيل بل dawladdu way sheegaysaa bariyaha dhan waxaan idinka maqnaa waxaan lahaa heerka booqan yaad hargib iyo balaayle dhex tagin anaga naftarkan ma yeereysana meeshan hooyo iska yara xanuunsanay xanuun iyo wax ha islaanta anu bariyaha waa la ahay maxaa miyay garoobays may abo ma waan la ahayba guriga markaan imaado meeqa mar baan idin imid hooyada waa ogtahay guriga joogi taqaanay qof shaqada la qabsato waaye marka suuqa iyo meelahaas iska socotaa had kambaniyada dahab bay la shaqaysaa هو ملانا بس أنت أنا شغل كوكل أو سكري وحكينا ليس أي أحقد درسنا أو أي لها هلس هي إيه ورم بلادي وأنا وفي عنها أب الحمد لله نوت ساق عيد ممكن يجوا ها كل جاي جوجو ما حدا هذا ولي أب قبلها وإسكوريجان أنا وأتقن أوريج مجعلنا قرود ما ساس على جارها قبل وقتي قرود شوكتي حق قبلها كله لكن عجاك كفلا لفتو ما قان أبا ما عير أنا قال لي أنا قراعوي كل قط تمو حبانا أقدر مرة ما عليك جوري كتبه حبانا أقدر gabadha hadday shaqaynayso gurigeeda ha shaqaysato markay soo shaqaysay xafiiskii ka shaqaynayso ka soo baxdo say u soo socoto gurigooda ha imaato laakiin gabadh meel taagan oo sidii qodkii baalihii korontada loo isticmaalayo kalanta saa u taagan oo mid laga yaabo la qaado hofoodu saa tahay inuu dhuunta kaga jiro waxaa ma rabaani ma shaqeeyaan abo ab arin kala jirto oo soo korto ayaantan waxay ku soo korodhay ani adal saaga waxaa jirta wiil ayaamahan la sheekeysanaaye maxaa tiri wiil ayaantan la sheekeysanaaye wiil nin ah nin wiil haddaad dhahda ilmo yar buu noqonaya mugta kuraya waayahay nin ayaanta la sheekeysanaaye aad jiro haye asigana wiil wanaagsan waaye wuxuu dhahay in waqtiga iska lumino oo camal meelaha kula istaago marna maalba meel kuu kaxeeyo waxaa igaaga wanaagsan intaa reerkaaga kaasoo doonto aan isguursano marka wiilku waa wiil reer hanti leh oo ka dhashay iska dhaqan yihiin alxamdulilah wax way haystaan South Africa wuxuu ku leeyahay soo isha company oo u shaqeeyaan marka ina oo isoo doono oo isguursano wiilkii arabi wiilka ma xoobe gorod barat hadda bil way ku dhowdahay umaleynaa inta ma bil ba taqaana isaga dhanba ha abi ma taqaana ya abi ma taqaana abisa ma aqaan abis hooyadiin ma aqaan aniga gurigooda ma tagin reerkiisana reerkooda ma arag Soomaaliya jira reerkiisi waa qolan waxa ma weydiin aba xasiya isweydiin bari waxa ay isweydiiyay waa ma قلبي قبل كيس أروسه يعني إيش هذا مجاعة أنا هذا أباها أقول هذا عبد الناصر هذا عبد الناصر أبا عبد الناصر إن أباها هذا تقروني محددكم حيكون قادنها ما يدري أنا تمام حالكم قادنها يبتشوف في إيش أبو أنا جوانا بالين أنا تايسوما ها قف والب سمد أوليه روح والب متقنا سمد متقنا سمد متقنا روح والب سمد أوليه وقلنا وكرش sababtu kulli qowl qabyaalad iyo dadka Soomaalida waxay gal garan sheega abulo amalena abu dhageyso dadku waxay gal garan leeyihiin qabyaaladii iyo qabyaaladu waa waa cadaalad darro waa bakhti waa iscayrsi waa isdilis waa isdhicid laakiin qabiilku ma taqaana waxa uu yahay waa barasho waa hidaraac waa ummad sooc waa jid dariiqaad waa ogaansho waa is aqoon waa isku kalsooni taas uu qabiilku ka shaqeeyaa waa barasho laakiin
adiga hadda nin aadan aqoonin oo South Africa waxaad sheegaysaa aabad anise u dhaha qof qabiilkaaga waaye waxa sito ama ka xishoolaya qabiilka qof aan street ma u weydii karo aabo marka adiga isbirtiin ada iyo wareysanaya ada iyo qaabis war cusubadkan oo hadalay aabo waxaan weydiina adiga gabar yar baad ii ahayd foodley oo cid joogto soo wax walba waxay ku soo bariday xaaladeeda aan ogaanahay goormaad weynaatay aab aniga gabar yar baad ii tahay mid kale ab guurku wuxuu leeyahay wax fara badan oo ogtahay oo la rabo in la soco guurku leeyahay waxa la rabaa ninka aad guursanaysaa nin aad heerkooda ku kalsoonaan karto isaga aad ku kalsoonaan karto aqoon aad u leedahay wax ma weydiisay isaga asiya ha waxyaalaha weydiisay maxaa kamid hooyadaas ula dhaqmay ma weydiisay hooyadaya sida ula dhaqmi lahaa lacala hadday gurigiisa tagto marti ahaan waxaas ma weydiinin wax hooyadaas siinay ma weydiisay ninka se u dhahaa maxaa hooyaday siinaysaa aniga hooyaday inuu jecel yahay uu ii sheegay dan waxaa ku dhahay kolley wuxuu igu dhahay hooyada si ani hooyaday oo kale waa isku si aan ula dhaqmaayo labadooda marka ma u malaynaa inuu hooyo ama adiga si xumaanaha صح horta aab anigu mar rabo inta gurigeena laga wado in booyaasho laga dhigto booyaasho ma taqaana waa u sheegay ani inaan waxba qaba aqoon hotor hool aqoonin wax shaqo ma taqaana no waa u sheegay maxaa mid yar hadaad nin rabto dhageyso hadaad nin rabto wiil yar oo adeer u ah oo aan ku dhahayn wax ii soo kar iyo wax ii keen haduu doono cadaha ku tuujina yaan kugu dari mara ani waxaas maribi adeer nin aaba aqoonin nin baa mara qabiil ani family dhan mara ana wiilkan keensaday aaba hota fiiri oo shalna way ila dagaalaysay dhageyso adiga ku sheeg dhageyso aniga halka beerka adiga taala wadnaha adiga taala kaliyaha adiga taala maskaxda adiga taala adiga waxa rabtaa sida gabdhahan wada garoobaynaya dirmiiskii laba kilowada orday maqaxyada orday oo galantana noqon may aaba hota hal cidaan kugu aaminaan rabaa dhageyso aabo ani hota ani aad saaxiibaan ahna aaba markii dhinaciisa soo dhaafo ani saaxiibkii camalaata wax walba ku sheegtaa daas waa adaa hadartan ana oo kula fadhiisay wanaaga kugu sheego hooyo xataa oo ma sheegin hooyo shalay ilaabkii ku aragtay way xanaaqday wiilka way ku qaylisay way buris aniga oo isla hooyo halkaas fadhida waa ceeb inaa nin inta kasoo gelisay oo hooyo ka xishoonaa wiilka dhahaa marka la kulmeena baa habboon waa iska taqaanaa afdheerideeda hooyo usoo sheegtay inaa wiil banaanka la taaganahay hooyo wiilka waa buris ha buris maxumee waxay tiri gabadhaan kuguma aan arki karo ani hadda wax walba kugu sheegaya xitaa kalsooni iyo inaa adi saaid kula sheekaysto oo ana adi ku jecla hooyana waa jecla laakiin adi saaxiibkaya sax waa mahadsantahay aaba ani ninkan anaa keensaday ina ani dooqayga guursadaa rabaa ma xumo adi wiilka ii keentay uu xun yahay kuma lahi kan aa keensadayna anaa dooqayga ku keensado xumaan ma jirto aan kaa tijaabiya aab aniga ma rabo nin hadhow ama kaa oohiya ama kaa cadhaysiiya ama cidla kaaga taga ama dhaxan kugu dila ama shaqo kuu dira oo ku rafaadiya kulama rabo ninku furo kulama rabo waxaan rabaa gabadh sida la iiga guursaday ku dhalma baxdo iyadoo ninkeedu ay isku abaadaan oo ilaahay isu macaaneeyo oo awlaad jacayl dhasho inaad noqoto ma maqlaysaa arrinta iyada aan rabaa ninka anaa kaa tijaabinaya hawal bahaarin aniga gabadhaydii baa tahay wanaag baan kula jeclahay haddii uu nin fiican noqdo anaa dabagelahaya waa iswaraysanaynaa su-aalaan weydiinhaya wax kastaan waraysanaya hadduu nin kuu qalmo noqdo waan kugu daray laakiin haddii aan u bogi waayo bakooradan hoosta ka gelin waan caydhin adna ma dhihi kartid maxaa u caydhisay maxaa kaloo cusub ii war hotor hooyana hotor guurkiis ma iska dhaaf xataa inaa la hadla xataa ku fikirnay tir guurkaasaa kusoo xasuustay oda cabdulaahi wacan aabaheed iyo beryahan gurigaan uu ka dhamaan laayahay dagaal iyo buuq oo hooyo stress iyo xanuuna hooyo asaa ku furay hooyo beryahan waxay la xanuunsan tahay ee la ilgo'day maanta dhan la fikirsan tahay waa asi muxuu leeyahay ninka cabdulaahi wuxuu leeyahay hooyada uu qasaya wuxuu leeyahay wuxuu maqlay wacan in mar dhow lasoo doono rabo sax ani marka ani maanta iimaad waxaa ku dhahay walaayada iska soo wareeji oo aabahay kusoo wareeji aabahay cabdinaasir gabadha bixinaayo maadaama adi hooyaday saas hadda kol ku samaysay wanaag hadda meeshan kuma walaalo soo wareejiya waa igu banaan tahay haye iska soo wareejiya ku dhahay aabahay gabadhaan soo korsaday asaa maanta wuxuu dhalo ilmahoo dhalo waxba uma dhahmaan xaqa asaa ku leh iska soo wareejiya ku dhahay gabadhaan asaa bixinaayo haye halkii dagaal ka bilaabay macnaha nool macnaha saas macnaha kana wuu baxay asii hooya halkaa isku qabsadeen waa buuqeen wuxuu yiri gabadhayda hadduu cabdinaasir bixiyo waa la arki doonaa adig booti dagaal iyo halkaan
uga bixin gabadha uu sheegay maxay tahay Waxa. gabadha halkan u joogto maxay tahay gabadha halkaa joogto adiga aad korsato adiga aad dhasho leeyahay cida ani ahayn ma bixinayso hawagalay warbalkaale haye ilmihii shalay adiga korsato kugu haystaa shalay muxuu u korsa waay hadduu rabo hooyada Shalay maxay ku ku tirsa tiri waay. maxay hooyada ku tiri hooyada waxay ku tiri nina cabdi naasir ahayn way ii ilmaha ma sheegtay bixinayo inay erisay tiri horta kabahaaga qaade ninku muxuu isla waalayaa ayadoo ku ceerisay Gabadha- aabba weli kusii jeceshaa hooyadee kusii jeceshahay ma hooyada waxba ma rabte iyadan meel u soconin dhegeyso haddii eebba idma hayo ma gabadha markay weynaatay ee nin rabta keliya u dhalay markay yarayd ee ay caanaha u baahnay muuse xagee buu ku iloobi maaqa meel ku ilo hadeertaano aabanimadii soo muujinaya markii gabadha maqlay lasoo doonanayo aabanimadii soo muujinaya alaa kulli xaal ani waxaa kaa rabaa ninkaas aabba inaad meel saartid waxaasoo dhan aabba anaa kala xalinay waxaasoo dhan anaa kala xalinay adiga ninkaad sheegaysana haddii alla idmo anaa ogaan xaaladihiisa waan baari doonaa adna gabadh balaayaa iska dhig maaragtay dadka kaa waaweyn walaayada soo wareeji baan idhi waxbaan kaa maqlahay af adaygaana iska daa aabbo cidna hala aabba hooyadii wuxuu ku sameeyey markaa maqlay aniga madaxa lagu dhifto iska daa waxaa hooyada xilligeeday ahayd iyadaa guurka ku degdegtay iyadii ninkeeduna horay isu waxeeyeen waxaaba laga soo gudbay hadda dad bay haysataa way barwaaqowday adigana dadka kaa waaweyn hadhihin waxaas aye hadhihin hadda ka bacdi waa lagaa nixi il baan ku raaci waxaas afka adag lama rabo صح يا واي af adaygaa lama rabo Absud- ord ka fur- furman haye وعليكم السلام في عنها محاسوة انت هذا